Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada qisooyinka nolosha. Mid ka mid ah iskuulada wax lagu barto ayaa macallimad dhigaysa qaadatay fasax sanad ah. Kadib waxaa booskeedii la keenay macallimad kale. Maalintii koowaad ayay bilowday cashir iyo sharaxaadiisa. Waxa ayna kicisay arday. Markuu ardaygii istaagay ayay dhammaan ardaydii wada qosleen. Macallimadii ayaa la yaabtay qosolka bilaa micnaha ah. Waxayna indhaha ardayda kale ka dareentay in ardaygan ay ka aaminsan yihiin doqon kaas oo aan waxba garanayn. Markii ay xiisadii dhammaysay ayay ardaygii u yeertay waxayna u dhiibtay cashir gabay ah. Waxayna u raacisay hadal. Waxayna ku tiri u soo xifdi sida magacaaga oo kale. Arday kalena ha u sheegin. Subaxii dambe ayaa la isku soo noqday. Macallimadiina xiisada ayay soo gashay. Markaas ayay sabuuradda waxay ku qortay meerisyadii gabayga ahaa ay u dhiibtay ardaygii. Kadibna way sharaxday oo way micnaysay. Cabaar ka bacdi ayay masaxday. Markaas ayay ardaydii weydiisay yaa akhrinayay gabaygii halkan ku qornaa. Misna ardaydii waxaa la waayay wax farta taaga oo aniga yiraahdo. Ardaygii ay doqonka ku sheegayeen ayaa farta taagay. Waxayna wada eegeen xaggiisa. Misna waa isagii oo si fiican u soo xifdiyay. Akhriskiisana ku taagtaagsanaya. Ardaydii oo dhan bay lama filaan ku noqotay. Macallimadii ayaa ku qasabtay inay ardaygan u sacbiyaan. Weliba sacab diiran. Waxayna dhiirigelinta u sii waday ilaa intii ardaydii ka aamineen in aanu doqon ahayn balse yahay fariid weliba caqli badan oo dadaal badan maskax furfuranna leh. Ardaygiina wuxuu bilaabay inuu naftiisa kalsooni badan ku qabo. Dareemana inuu isbeddel badan ku dhacay. Wuxuuna ku hamiyey inuu tartan la galo ardayda kale amaba oo ka sarreeyo. Ardaygaas wuxuu gaaray barashada jaamacadda ilaa iyo masterka. Haddana wuxuu diyaarinayaa shahaadada PhD. Haddaba daawade, dadku waxaa ogaataa waa laba mid uun. Dad fura khayrka iyo dad fura sharka. Kuwa hore way ku dhiirigelinayaan wayna ku rajo gelinayaan. Kuwa kalena way ku dhaleecaynayaan. Haddaba qisadan haddii aad wax ka faa'iiday nala wadaag kuna qor kommentiga.